بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelmadeenna waxaan kaga hadlaynaa su-aal khaas ah oo gaar ah laakiin farqa badan siyaabo kala duwanna ku timaada hal su-aal oo dheer oo qaababka ay ku timaada ka mid ah baan marka hore idiin aqriyayaayo su-aalaha noo yimid ka mid ah kadibna waxaan kaga maarmaynaa su-aalo kooban ama sidan ka gaaban ama dheer oo isla macaanahan oo kale xambaarsan qofka wuxuu leeyahay sheekh maalmahan baraha bulshada waxaa ku soo badatay diinta islaamka ka baxayo oo Soomaali ah kuwaasoo qurbaha ku nool kuwa kale oo diinta shaki laga geliyeyna oo gudaha dalka ku noolna waa jiraan marka sheekh aniga waxaan marar badan anigoo diinta aqoon badan u lahayn la dooday kuwa diin laawayaal ah oo boosti soo dhiga Facebooka sidaas awgeed su'aalo kulul oo dhan walba leh ayaan isku tuurtuurnaa muddo kadib aniga laftigayga ayaa su'aalo igu furmeen oo diinta ku saabsan subxaanallah diinta shaki igama gelin laakiin waxaan rabaa qof ii faa'iideeyo waxa iga maqan intaas kadib su'aasha aan rabo ayaa ah bani aadamka allah ayaa abuuray sidoo kale qof walbo janno iyo naar meesha uu gelayo ilaah ayaa horay u qoray marka qof adduunka marka uu yimaado wixii loo qoray unbuu tacbanayaa soo ma ahan mise wax aan loo qorin ayuu samayn karaa tusaale asagoo naar u qoran inuu galo camal jannada lagu gelaya adduunka ma ku tacbi karaa haddii jawaabtu maya ay tahay oo wixii loo qoray uun buu tacbayaa ay tahay waxaa soo baxayso in bani aadamka uu yahay waxa aan go'aan lahayn oo adduunka la keensaday waxa uu tacbayo oo dhan xumaan iyo samaanna horay loogu sii qoray sidaas awgeed dadku wax dooq ah ma lahan haddaan camal xumaan sameeyo ilaahay ayaa ii qoray hadhowna wuu igu cadaabaa qur-aanka waxaa meelo badan ku jirto ilaahay dadka ma dulmiyo iyo ilaahay wuu cadaalad falaa marka sidee cadaalad ku tahay inaan istiqyaar la isiinin oo wixii aan qaban lahaa oo camal la ii soo qoro wixii la ii qorayna la iigu ciqaabo soo cadaalad darro ma ahan midda kale haddii adduunka la ii keeni lahaa oo waxba la ii qori lahayn wixii aan tacbado aan heli lahaa xumaan iyo samaan hadhowna naar iyo janno wixii aan tacbado ayaan leeyahay haddase lugaha iyo gacmaha qof ka xiran ayaan ahay sow ma ahan oo la leeyahay adigoo xiran wax same sida kuu muuqata inna waa hordhac inna waa nuxurka su'aasha oo baabulqadar ah hordhaca mid baan ka dhihi su-aashan qadarkana waxoogay waan faahfaahin masalada mid hordhaca baan ka dhihi oo way jiraan oo dadku iimaanka iyo qalbigooda ilaahay baa haya qof walba diin buu galaa in Soomaali oo xunxun oo gaalowdayna way jiraan inay shubaha fidinayaanna way jiraan laakiin adiga oon diinta aqoonin shubahana aan ka jawaabi karin in badan baa laga hadlayo culimmadu ka hadleen meelahaasoo kale ha gelina
oo markii caafimaad laga hadlayo idinku aan aqoonin kama doodaan markii duunyo kale laga hadlayana qof aan aqoonin doodeeda ma dabaasho maxaa diintii baab furan uga dhigteen oon caqiidadii iyo iimaankiinnii idinkoon difaaci karin oon aqoonteedii lahayn aada suuqa iyo sayladda u dhigaysaa saa darteed waxaan rabaa munaasabadda in aan ka idhaahdo meelaha shubaha iyo waxyaabaha lagu wado ha gelina ha akhriyina doodeeda ha gelina haddii kale shubhadan si aad uga jawaabtaan aqoontii diineedna ma lihidin naf iyo shayddaanna waa idinla xiriiraan boqolkaas su'aaloodee ku dhashay qofkaas oo hal midoon ugu keenay halkii midoo intaasoo farac noqday baa sidaa u galay saas darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka waxaa la fidinayo ha sheergaraynina ha akhriyina waxba suuq iyo dood ha u yeelina wax aadan garanayninna ka garnaqsigiisu in garta lagaa helo unbuu keenaa waayo waxaan aad ka doodaysid ka garnaqsanayso ma garanaysid u daaya dad kale ilaahayna sida midda labaad waxaan rabaa in qofkan saa'ilka iyo dadka la midkii inay soo weydiiyaan cidday ay bidayaan inay ku dhaan tahay waa arrin wanaagsan ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka waxaan yaqaanee garanaya weydiiya haddaydaan garanayn wax walibana qofkii yaqaanee aqoonteeda leh baa la weydiiyaa adoon aqoonin lama dabaasho taasi hordhaca ereygaan ka dhihi lahaa wey masalada qadarku waxaan rabaa intaanan jawaab hoose gelin inaan hordhac u sameeyo mas'alada qadarku waa sirullaahi fi lkowni waayo kownka ilaahay markuu abuuray sir uu ka qariyey buu ku salaysan yahay qadarku oo si kasta haddii loo baadho oo ka gungaadh aad tiraahdo aan la gaadhi karin keligiina ma ahanee dunidan labadaba way jiraan waxyaaba dunidan ka salgaadh haddaad tiraahdo aad ku wareeri baa badan tusaale qorraxdu waa iftiinkaa ilayskaa socda haddaad tiraahdo aad baan u fiirin si qorraxda aan u barto indhahun baa ku xanuunay intay nuurkii kaa tagay indhaho ku diraandirto unbaad hoos u foorarsan oo daali iyadoo makhluuqiya baa iftiinkeedaa iyo intaa kora maahane aadan hoos u geli karin baabulqadar waxay culummadeennu yidhaahdaan sirullaahi fii khalqihi waay wixii ilaahay dadka khalqiga ka qariyeyna aduu waan baadhi haddaad tiraahdo aqli kasta lahow aqoon kasta lahow waadun ku lumi dad badanoo ummadihii inaga horreeyey ahaa oo qaar diinta yaqiinna ay ku jireen oo dad adkiye cuqalo ahaa baa intay baabulqadar galeen bay ku jahwareereen baabulqadar wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soomaalida maahmaahdooda ay ku rumoobayso midho barde duuduub baa loo liqaa haddaad kala fadhfadho ood kala dildillaaciso waxbaa dhaqdhaqaaqaysaa od ilaahay kolba inu tuurayso baad ibar baxaysaa qadarka rumayntiisuna arkaanta iimaankay ka mid tahay oo haddii aadan rumaynin iimaankaagu ma ansaxayo uma baahnid marka meel aadan salkeeda gaadhi karin inaad isku tuurto waan moolin aad tiraahdo hortaana laga soo caagay mid waad og tahay adduunkan ilaahay inuu abuuray isagoo suu rabana u soconayo qofna lagalama tashanin xilliguu dhalanayay qoflana tale laga weydiin maayo xilliguu dhimanayo bini aadamku falkooday ka doodaane abuurkooda kale inaynan iyagu tala waxba ku lahayn cid ka dooda ma laha goormaad dhalatay qowmiyadeed u dhalatay midabkee baad leedahay rag ma dumar baa tahay kalarkaaga iyo midabkaagu muxuu yahay qof inaga midoo doortay ma jiro goormaad dhiman qof doortay ma jiraan mar haddii intaasi waa adiga abuurka iyo jiritaankaagii oo dhan wey waxa hadda su-aashu ka taagan tahay ee bini aadamku muranka la gelinayaay waxa aad samaynaysa wey haddii habeenkiiyo maalintan iyo cirka iyo dhulkan iyo adiga nafta kugu jirtaee lagu geliyey iyo goorta lagaaba saari ee falkaagii oo dhanba uu soo bilowday ama uu dhammaani tala aadan ku lahayn khiyaar uusan kaaga furayn hadda itaalkaagu khiyaarkaagama fura ma dheer tahay ma gaaban tahay waa sidii lagaa dhigay qowmiyaddaad tahay iyo midabkaagu waa sidii lagaa dhigay rag iyo dumarkee tahay waa sidii lagaa dhigay
khiyaarkaagama fura sidaa un ku ahaw wakhtigaa timid talana maadan lagu weydiinin codsina maadan keenin markaad dhimanaysana cid wax lagaa weydiin maayo wixii ka dambeeyana yaaba tala ku weydiinaya adiga dunida sidaaba aad ku joogtahay intaa kalena aad ogoshahay intanoo qayb yar oo ka mid iyo wixii aad garan weydo haddaad isku sii dhibto waad ku wareeri walilaahi almathalu laclaa aadamuhu ganacsiyada markay sameeyaan ee waxyaaba isku dardaraan wax ay qariyaan saan waxoodii oo kale loo samaynin baa jira sharikadaha cabitaanadii cunooyinka qaarkood sameeya sir ay qarsadaan baa jirta oo la raadiyo haddii la helana muddo lagu rafaado wixii aadama kooxahoo shirkada samaysteen baaba saa loogu rafaadaay ama qaarkoodba ilaa ay hadda cid sheegtoo badanaa na arage aanu intaan ogahay ku shirkadahan wax sheegay la arag baa jire tii rabbulciza khalqiga iyo koonkan iska lahaa uu ku talagalay inuu kaa qariyo waan ogaan waxba ka gaari maysid intaasi waa baabulqadaro aadna ha isugu sii dhibina in badan baabad ogoshiida isku dhibine kanna intii haddaad ku dartaan waxba idinka dhimi mayso haddaad isku sii dhibtaanna wax badan oo natiijo ah ka gaari maysaan uman baa ku lumay idinna waa ku lumaysaan intaasi waa inta hordhaca aan rabaa inahdo baabulqadar inta hoose tusaale iyagan oo dhan hal qaacida inaan isla fahanno bay ku filan tahay baabulqadar laba arrimood labadaba waa sax ismana diidanee dadkaa mooda inay isdiidayaan qofku inuu khiyaar leeyahay oo wuxuu raba samaynayo wuxuu sameeyena lagula xisaabtamayo waa sax sidaasay u tahay isagaa wuxuu raba sameeya isagaa khiyaar buuxa leh wixii uu sameeyey baa xun iyo san lagula xisaabtamaya taasi waa run in qadar ilaahay jiro oon qadarkii la dhaafaynin oo sidii horay u qoray uun la samaynna iyadana waa run ismana diidayaan halka dhibku ka jira marka waa mooditaanka la moodayo inay isdiidayaan waxaa laga yaabaa su-aashu inaad istiraahdo waxaan horaa loo qoray isagii un baanan samayn khiyaarkay baanan ku samayn la igumana qasbin saa laysu waafajiyaa dayb midaad garanaysana aan ku weydiiyo tusaalena aan ku siiyo tusaalaha ka hor aan qaaciidada iyo halka xarig u baahan in la furo aan kuu furo su-aalaan ku weydiiye markaad adigu adduunka samaynaysa eed safrayso eed nagaanayso eed seexanayso eed soo tusayso eed shaqo aadayso eed ka soo rawaxanayso eed guursanayso eed wax isfuraysaan yaa qori kugu haya yaa bur kula daba taagan yaa kula hadlay oo dhafka agta kuu saaray ma hadal baad maqashay waxaa sameeya ha samayni waxba miyaad maqashay khiyaarkaa inaad leedahay maxaad khiyaar u taqaanaa soo adigu inaad fikirto oo tashato ood gedgedido wax isku aadiso balaan samaysato aad fuliso soo maha khiyaarka taqaan intaa yaa ku daba taagan yaa ku qabqabtay gacmaha yaa ha fikirin ku yidhi yaa ha tallaabsan ku yidhi yaa balaan ha samaysanin ku yidhi yaa ku yidhi horta inta adigu aad aragto inta aad taaban karto inta kuu muuqata inta aad og tahay inta kugu xeeran wax ku qasbay ma laha adigaa fikiray adaa khiyaarkaa gedgediyey adaa khiyaarkaa go'aansaday adigaa muddo ka walwalay adigaa sida natiijadu kula saxnaatay ama sidaa khiyaarkaaga doortay oo ku sameeyey saas darteed haddii ay tahay khiyaar ma leeyahay maxaad uga jeedaa ma cid baa daba taagan oo xidhayso handadayso oo qori la daba taagan maya ma cid baa wax u yeedhinayso oo saa samee saa ha samaynin oo haddaad saa samaynin ma noqonayo saa haddaad samayso ma noqonaya kuleh maya sax waxaas waa fiican yahee samee waxaa waa xun yahee iska daa dee dawladuhuba way dhahaan hay-adaha samafalkuba way dhahaan dadka kula talinayaba way ku dhahaan intaa wax ka badan oo xarga aad ku xirxirantoo lagu hahaya haddaynan jirin soo macnaheedu khiyaar baad leedahay ma qadarkan qoranee la sheegaya adu miyaad ogtay wax qoran miyaad waru haysaa waa inaad waafaqi doonto iyo in kale miyaad og tahay
aduu markaad samaynaysid soo khiyaar buuxa maadan ku samaynin ma waxaan ka hadallaa adugu saad rumaysan tahay oo inaad dadaashay iyo khiyaarkaa ee la taaban karo mise wax ka dambeeyaan ka hadallaa dhinaca kale aan su-aalku weydiiye markii camalkaaga lagugula xisaabtamaya ay tahay maxaa su-aasha keenay markii adiga wax lagugu sameeyana aan keenin haddii tusaale ahaan haddaan ku imaadon dharbaaxa labadeen dhood kugu dhufto on ku ilaahay baa qadaray miyaad iga yeeli waa la ii qadaray khiyaar meri aan ku dhaho haddaan imaadoon xoolahaaga iska qaato lugta kaaga istaago biyo iyo qashin kugu gediyo ilmahaaga aan 5 xabadood ku dhufto kadibna aan ku ihahda waa ii qadarayd iga yeeli maysida waan kugula xisaabtami baadi okay adiga xisaabtankaaga markay gaadho waa ii qadarayd maxaa keenay dooda maxaa keenay waxsaa walaal nin baa waa wuxuu ku dooday sidaas oo kale wax walbuu qadaran yahay halaygala doodo nin culimada wuxuu yidhi anaa la doodaya fagaara nooga dhiga fagaarihii markii lasoo fadhiistay waxoogay doodeen baa hal dharbaaxa indhaha u geliyey maxay dharbaaxaysaa bui ilahay baa qadaray bui waxoogay markay socdeen bu haddana candhuu fajiga kaga tufay war maxaad igu tufaysaa ilaahay baa qadaray bui intuu feer u dhiibo ilaahayna ma qadarin wuxuu adi markii lagugu tufana ilaahay baa qadaray markaa dadka wax ku samaysa ilahay ma qadarin miya masalada qadar baa horreeya dood ma gasho qofku cudurdaar kama dhigan karo qadarna ma ogid wax ku qasbayo kortaagana ma jiro taasi waa midda hore aan rabo horta khiyaar maxaa looga jeedaa fasir markaan ku idhaahdo in allaale intaad ku fasirtay waad leedaho wax la taaban karo marka cidi kuma qasbin masalada meesha taalla xukun nuxurkeedu maxay tahay tusaalayaasha intaana gelin nuxurkeedu waa mas'alatul cilmi waaye saa darteed baabulqadar asaas lafdhabar waxaa u ah aliimaanu bicilmi illaahi alkaamil ilaahay wax walba inuu og yahay suu yahayna wuu og yahay wax ka qarsoonoo yar iyo weynna uusan jirin yaclamu maa fi asamaawaati wamaa fi alard wuxuu og yahay maa tagiidu alarxaamu wamaa tasdaadu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi asuduur caliimun bidaati asuduuri weeye qad axaata bikulli shayin cilman weeye wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha walaa xabatin fii dulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ilaa huwa fii kitaab mubiin waay marka aan rumayno ilaahay cilmigiisu waxay soo dhacay iyo waxa dhacaya iyo waxa dhici doona iyo mid walba waktiga iyo siduu u dhici doono dhan waa og yahay markaan idhaahno inta kale qadarku waa sahl halkaa haddaan shaki kaaga jirin wad inta aad rumaysan tahay ilaahay markuu ogaa waxa dhacay iyo waxa dhacaya iyo waxa dhici doona intii uu ogaa buu qoray intii uu ogaa baana dhici ilaahay wuxuu ogaa hal tusaalaan soo qaato inaad guursataa rabtaa qof raga ama dumaraa haasaawo idin dhex maray ilaahay wuxuu horey u sii ogaa in haasaawaha idin dhex marayo inta jeere uu dhacayo inta hadaleed isdhahaysaan natiijada inta ay wakhti qaadanayso inta qaab aad u fikirayso inta aad tashi samaynayso intaad wax isku aadinayso muddadaa dhexdeeda waxaa dhacaya la xiriirayoo dhan kadib go'aanka aad qaadan doonto intaba waa sii ogaa go'aankaas markaad qaadata kadib ku dhaqaaqaagaa isku daygaaduu ogaa waxaad mari doontuu ogaa inaad ka noqon doonto iyo inaad wadi doontuu ogaa intiibuu horey u sii qoray qoraalkani wuxuu farac ka yahay cilmigii uu ogaa saas darteed haddaad qirtay ilaahay wax walba inuu og yahay suu u yahayna u og yahay haddee siday u dhici lahayd buu ogaayay u dhici doontaa asagoon kuu qasbin asagoo kuu qasbin bay si u dhici doontaa tusaale walilahi almathalu laclaa 2 tusaale aan ku siiyo masaladu masalatulcilmi inay tahay iyo masalatul'ikraah iyo qasab inaynan ahayn oo sidii u dhici maysana ilaahay wax ma oga ay ka dhiganta way u dhacaysaana ilaahay cilmigiisaa kaamil ay ka dhiganta aan 2 tusaale ku siiyo qof baa xanuunsaday jiro iyo cudur culus baa hayey dhakhtar baan geynay aan aqoon iyo khibrad bidaynay wuu baadhay wuxuuna siiyey natiijo ah qofkani muddo intaa la eg buu noolaan karaa intaas kadib ma noolaan karo dabcan aqoon buu inooga sheekeeyey inay intaa u dhacayso laakiin isagaa dilaya oo qasbaya maaha
qofkii haddii uu waktigii ku dhinto ma dhakhtarkaa dilay? dhakhtarku ma dilin. maxaynu dhahaynaa dhakhtarku wax waa aqoon fiican buu lahaayoo si fiican buu wax u qiimeeyey, laakiin isagaa dilay dhihi mayno. waxay astaan u tahay dhakhtarkani cilmi iyo macrifo inuu u lahaa wuxuu ka hadlayay. hadduu qofkii waktigii ku dhiman waayo maxaan dhahaynaa waxba ma garanaynin. masalada masalatulcilmi waaye. marka cilmigiisaa naaqis ahaa. hadduu cilmigiisu kaamil yahay ma qaldameen wey, siduu sheegay noqon lahayd. tusaale labaad, haddaan injineerkeenna guri oo gurigii intuu dhismihii qiimeeya uu yidhahda intaasoo sana u dhisnaan karaa, kadib ma dhisnaan karo, oo waktiguu sheegay uu ku dumo gurigii, ma injineerkii iyo muhandiskaa dumiyey? jawaabtu waa maya. hadduu ku dumay maxay astaan u tahay? aqoon fiican injineerku wuxuu ka hadlayay inuu lahaa. hadduu dumi waayana inuusan garanayn. hadduu dumana waxaan dhahayna wallahi injineerkaas aqoon fiican buu lahaa, laakiin injineerkaa dumiyey oo qasbay ma aha, laakiin siduu sheegay bay noqotay. hadduu dumi waayana waxaan dhahaynaa injineerku ma yaqaano, aqoontiisaa kala dhinayd. marka mas'aladii jahli baan u celinay ee cilmi maynan celinin. tusaale saddexdaan ku siiyo. haddaad ii timaado tiraahdo qof hebel baan arrintaa ugu socdaa inaan kala hadlaan rabaa, qaaraan ka soo qaad. anigana waxaad ii bidaysay inaan qofka si fiican u aqaan oon ku idhaahday hebel iska daa, waxba ku siin maayo, wuu ku caayay, iska daa. oo tiraahdo intaad iga diiddo aad tiraahdo waan tijaabin. hadduu qofkii intuu kuu diido ku soo caayo, ma anigaa qasbay inuu ku caayo ku caysiiyey? may. waxaad dhihi ninka waa yaqiinay, si fiican buu u yaqiinay baad dhihi. masaladii maxaad u celisay? cilmi iyo aqoon baad u celisay. haddii uu ninkii ku soo dhoweeyo qaaraan fiican ku soo siiyana maxaad dhihi? waxa muusan aqoonin baad dhihi, uu ka been sheegay. masaladii maxaad u celisay? jahli iyo aqoon la'aan, inay sidii noqon weydo. saddexdan tusaale waxaan uga jeedaa inaad ila fahanto wixii saasay noqon doontaa la yidhaahdo oo fayl iyo recording laga sameeyo oo meel lagu sii qoro. haddii sidii ay u dhacdana cilmi iyo aqoon bay tilmaamaysaa, hadday u dhici weydana aqoon la'aan bay tilmaamaysaa. masalatulqasab iyo ikraah ma aha. masaladaa markii basharka ay ahayd bay ahaydee markii allah aan u noqonno jahli iyo aqoon la'aan meesha maba taalloo waxaan soo hormarnay wax walba say tahay buu ogyahay. kadib maxaa ka dhalanaya? say tahay bay u dhici. sababtoo cilmiga ilaahay naqsi ma galo. marka mas'alada haddii aad taa tiraahda ma dhici karto, sidii basharkii cilmigiisu waa naaqis. masaladu marka maxay u noqotay? mar haddaad rumaysay cilmiga ilaahay ee kaamil ee wax walba wuu og yahay oo soo socda say u dhacayaan, sidaasuu qoray, sidii bay u dhacayaan, kumana qasbin. uma dhacayaan waxay ka dhigan tahay oo loo diidan yahay naqsul cilmi iyo jahli baa lagu tilmaamayaa. horeyna waxaan caqiidada iyo iimaanka oga mid dhignay cilmigiisu inuu kaamil yahoon meel laba naqsi ka soo gelin. kan basharkana wuxuu u dhici waayey, cilmigoodaa naqsi geli karaa. saas darteed wixii ilaahay cilmigiisu kahaa ee uu horay u qoray cilmigiisii baa dhacayo, wax ka duwan dhici maayo. adna laguma qasbine khiyaarkaabaad ku samaysay. cilmigii saabiqa ahay ee qadarnaana maadaama uu kaamil ahaa, adigana sidii baad u samaysay, lagugumana qasbin. wabillahi tawfiiq.